السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا أرداغا فيلمدا. maanta waxaynu sharaxaynaa filim dhac bangi ah oo lagu magacaabo Going in Style kaas oo soo baxay 2017. fadlan ha hilmaamin inaad subscribe nagu caawisid. bilowga filimka waxaynu arkaynaa oday lagu magacaabo Joe oo ballan ku leh bangiga Williams Bank iyo maareeyaha bangiga oo lagu magacaabo Chuck. sida uu sheegay Chuck, odayga Joe waxaa lagu leeyahay deyn wuxuuna ku qasban yahay in uu rahmo gurigiisa si deynta looga dhaafo. maadaama Joe uu gurigiisa la wadaago gabadhiisa iyo inan uu awow u yahay ma aqbalayo. si lama filaana burcad ayaa soo galaysa bangiga waxayna bilaabayaan inay si degan u dhacaan. tuugadii waxay u sheegeen qof kasta oo bangiga ku jiray inuu dhulka jiifsado oo iska aamuso. Chuck ayaa sameynaya jabaq taas oo soo jiidatay dareenka hogaamiyihii kooxdan. waxa uu soo galayaa qolka ay Chuck iyo Joe ku jiraan. waxa uu u damqanayaa Joe kadib markii uu ogaaday arrimaha dhaqaale ee uu ku sugan yahay kuwaas oo waraaqda ku yaala. Joe ayaa arkaya in hogaamiyihii burcadda qoortiisa uu ku yaalo tattoo ah dagaalyahan Mongol ah. dhowr ilbiriqsi kadib tuugtu si degdeg ah ayay ula carareen boorsooyin lacag ah. muuqaalka xiga waxaan arki karnaa Joe oo looga yeedhay saldhigga booliska. waxa uu u sheegayaa wakiilka FBI-da oo lagu magacaabo Hammer tattoo-gii uu ku arkay qoorta tuugga. Joe kadib wuxuu u soo jeediyey Hammer inuu ku raadraaco tuugta bangiga isagoo isticmaalaya tattoo-ga una sheego inuu daawado bandhigga dambi baadhista TV-ga ee loo yaqaano Law and Order. si kastaba haatee Hammer ayaa u sharaxaya in dambi xalintu qaadanayso wax ka badan 1 saac oo bandhig TV ah. kadib Joe waxaa la socda qoyskiisa iyadoo Joe uu sheegayo inanta uu awogu u yahay wax ku saabsan tuuganimada bangiga ee uu soo arkay. iyaduna aad ayay u xiisaynaysaa oo ay u malaynaysaa inay aad u fiican tahay inaad ishaada ku aragtid dhacaas oo kale. si kastaba ha ahaatee hooyadeed ayaa isla markiiba soo dhexgelaysa iyadoo waxay u aragtaa in aanay wax wanaagsan ku jirin dhicidda bangiga. maalintii xigtay waxa uu la kulmayaa labadiisii saaxiib ee Albert iyo Willie kuwaas oo dhankooda wargeyska ka ogaaday dhaca bangiga. Albert waxa uu maleynayaa in cidina uusan dhibaato gaarsiinayn dhaco marka laga reebo shirkadda caymiska. wuxuu kaloo sheegayaa in tuugada aan weligood la heli doonin. Joe ayaa u qeexaya muuqaalka saaxiibadiis oo sheegaya in ficilka tuugtu ay ahaayeen kuwo aad u degdeg badan oo xirfad leh. kadib Willie waxa uu tusayaa Joe baqshad deynta howlgabka ay ku leeyihiin shirkaddii ay u shaqayn jireen ee Wetzlar Steel. marka xigta saddexda nin ayaa ka soo muuqanaya kulan ay la yeelanayaan shaqaale kale oo gaboobay. maamulaha shirkadda ayaa ku warramaya in shirkaddu ay ku khasban tahay in ay u guurto Vietnam maadaama kharashaadkooda uu kor u kacay. Joe ayaa tusaya deynta howlgabka madaxa waxauna su'aal ka keenay waxa ku dhici doona howlgabkiisa. si kastaba ha ahaatee maariyuhu waxa uu sheegayaa in shirkaddu ay joojisay oo aysan heli doonin lacag howlgabeed. kadib ogaanshaha warka, Joe iyo shaqaalaha kale waxa ay muujinayaan cadho iyo niyad jab ku wajahan shirkadda. intaa kadib saddexdooda ayaa ku kulmaya maqaaxi ay si joogto ah ugu kulmaan. lacagta howlgabka la'aanteed ayaa ka dhigaysa noloshooda mid aad u adag xitaa ma haystaan lacag ku filan oo ay ku iibsadaan cunto habboon. dhanka kale Joe waxaa dhiirigeliyey tuugada bangiga oo waxa uu si joogto ah ugu sheegaya asxaabtiisa. fiidkii kadib marka ay casheeyaan, Joe waxa uu gaadhayaa gurigiisa oo uu ka helaya ogeysiis ah in uu bangiga la wareegayo gurigiisa. Joe aad buu u naxay maadaama uu og yahay inuu guri la'aan noqon doono 30 maalmood gudahood isaga iyo gabadhiisa iyo inanta awogu u yahayba. muuqaalka xiga ayaa muujinaya Willie oo xaaladiisa caafimaad lagu baarayo isbitaalka. keliyihiisa ayaa ku dhow shaqo joojin. dhakhtarku waxa uu kula talinayaa in uu weydiisto cid ugu deeqda keli oo ah xubnaha qoyskiisa. si aad u muhiim waxa uu ugu baahan yahay in loo sameeyo kaliya bedelid sida ku dhaqsaha badan ka hor inta aanu dhiman. in muddo ah kadib Willie guriga ayuu imanayaa oo wicitaan muuqaal ah la yeelanaya gabadhiisa iyo inanteeda oo uu rabo inuu arko in badan. maadaama uu yahay nin aad u xanuunsan, Willie ayaa xitaa aad u niyad jabsan sababtoo ah ma awoodo inuu booqdo qoyskiisa marar badan. muuqaalka xiga wuxuu muujinayaa Albert inuu u shaqaynayo ka macallin muusig ahaan oo uu barayo wiil yar. wuxuuna sidoo kale la kulmayaa ayeydiis oo lagu magacaabo Annie. kadib markii inantii uu awoga u ahaa ay Joe tustay dhibcaha imtixaankeeda ayay ka codsanaysaa in uu u iibiyo A yar maadaama uu u ballan qaaday haddii ay A ka hesho maado kasta oo dugsiga ah. maalintii dambe saddexdii nin ayaa mar kale isugu yimid dhalashadii Willie oo ay weheliyaan waayeel kale. Albert ayaa u siinaya Willie saacad ay ku sawiran tahay inanta uu awoga u yahay hadiyadda dhalashadiisa. Joe wuxuu weydiisanayaa Willie iyo Albert inay kula biiraan qorshe dhac bangi. inkasta oo labadooduba ay la yaaban yihiin, haddana Joe waxa uu sheegayaa in bangigu rabo inuu qaato gurigiisa. waxa kale oo uu sheegayaa in bangiyadu ay burburinayaan dalka iyo riyooyinka dadka.
Joe wuxuu ku nuuxnuuxsanayaa inuu go'aansaday inuu wax ka qabto, wuxuuna ku darayaa in marka ay ugu liitaan loo diri doono xabsiga, halkaas oo ay xitaa nolol tan ka wanaagsan ka helayaan. Habeenkaas kadib markii uu si fiican uga fikiray, Willie ayaa wacayo Joe wuxuuna ogolaanayaa ku biirista qorshaha tuuganimada. Wuxuuna u sheegayaa inuu doonayo inuu awoodo inuu qoyskiisa arko wax ka badan hal mar sanadkii. Markii Joe uu weydiiyey Albert inuu ku biiro, Albert uu diidaya. Maalintii xigtay, Albert waxa uu kaxaynayaa Joe iyo Willie dhanka dukaanka weyn si ay uga soo iibsadaan alaabo. Albert waxa uu ku sugayaa bannaanka, halka Joe iyo Willie ay gelayaan dukaanka weyn. Waxa ay bilaabayaan inay dukaanka xadaan, isagoo u cabsanaya saaxiibadiis. Albert ayaa orod kaga dabagelaya dukaankii. Ayeeyadii uu wiilkeeda wax bari jiray ayaa halkan ka shaqaynaysa. daqiiqada kadib, Joe iyo Willie waxay ku guulaysteen in ay alaab xadaan oo si dhuumasho leh u baxsadaan, halka askariyadda nabad sugiddu ogaatay oo daba gashay. Markaasi Joe waxa uu xadayaa baaskiilka haweeney da' ah, wuxuuna ku kaxaynayaa Willie, halka Albert uu qabtay nin kale oo ammaanka ah. Joe iyo Willie oo waddada ku sii jira ayaa ku dhowaanaya inay bas ku dhacaan, waana la qabanaya. Sidoo kale kadib markii laga soo daayay dukaanka raashinka, Albert ayaa ka cadhooday saaxiibadii, gaarigiisa ayuuna ka kaxaysanayaa. Joe iyo Willie si ay u diyaariyaan qorshe kan ka wanaagsan, waxa ay go'aansanayaan inay raadiyaan Murphy oo ah ninkii hore ee qabay gabadha Joe. Joe waxa uu weydiistay Murphy inuu u helo dambiile kaas oo siin kara talada dhicidda bangiga. Kadib waxaan arki karnaa Albert oo yimid maqaaxida lana heshiinaya asxaabtiisa, iyaga oo eegaya qayb war ah oo ku soo baxday wargeyska. Saddexdina waxay ogaadeen in shirkadooda Steel ay u isticmaali doonto lacagta howlgabka si ay u bixiso biilasha, halka bangiga Williamsburg Savings Bank uu maamuli doono deynta shirkadaha, taas oo macnaheedu yahay in bangigu qaadan doono lacagtooda howlgabka. Albert oo ka carooday arrintan isla markiiba waxa uu ogolaaday in uu ku biiro asxaabtiisa si ay u dhacaan bangiga, waxayna go'aansadeen in ay dib u qaataan wixii ay xaq u lahaayeen. aakhirkii waxa ay la xidhiidheen dambiile la yiraahdo Jesus oo isla markiiba u yimid si ay ula hadlaan, isaga oo ka wakiila saddexdooda. Joe waxa uu ku qanciyay inuu ka caawiyo qorshaha. Taa beddelkeeda, Joe waxa uu siin doonaa 25% lacagta uu bangiga ka dhaco. Jesus waxa uu ogolaaday in uu ku biiro iyaga, maadaama Joe uu haysto 20 maalmood ka hor inta aan gurigiisa laga soo saarin. Jesus waxa uu isku dayayaa inuu baro saddexdooda cashar kasta oo ay u baahan yihiin si ay bangiga u dhacaan. Marka hore waxay ka bilaabayaan qeexidda qorshaha, kadibna doorashada gaadiidka ay u isticmaali doonaan si meesha ay uga baxaan. Waxay ku codsanayaan diyaarinta qaab jireed oo wanaagsan, iyo waxa ugu muhiimsan oo ah in la diyaariyo caddayn adag oo ah in xilliga dhacdada meel kale ay joogeen. Waxayna taas u isticmaali doonaan xaflad dhici doonta maalintaas. 20 maalmood ayaa ka soo wareegtay, waxaana la gaadhay maalintii howlgalka. 2 duhurnimo saddexdooda ayaa ku jira dabaaldega. Waxay isla markiiba go'aansanayaan in ay tallaabo qaadaan. 2:15 duhurnimo, Willie wuxuu wadaa bas, wuxuuna bangiga u kaxaynayaa saddexdooda. Dhaca bangigu waxa uu dhacayaa sidii ay u qorsheeyeen. Albert ayaa daaraya timerka saacadda, wuxuuna isticmaalayaa qori si uu u xakameeyo qof kasta oo bangiga jooga. Joe iyo Willie waxay tagayaan khasnadda oo ay ka qaadanayaan dhammaan wixii lacag ah. Si habsami leh ayay u socotay hawshu ilaa gabadh yari ay siiso Willie boombale. Halkaa marka ay marayso, Willie ayaa u yimid gabadhii si uu u dejiyo. Markii Willie uu soo fadhiistay oo eegay inantii yareed, ayuu si lama filaan ah u dhacaya. Kadib markii uu ku guulaystay inuu ka kaco dhicitaanka in yar, inanta ayaa qayb ka mid ah ka siibtay maskarada, arkaysana saacadda Willie uu xidhan yahay oo leh sawirka inanta uu awooga u yahay. Ilbiriqsiyo kadib markii Joe iyo Albert ay caawiyaan Willie inuu soo kaco, Chuck ayaa qabsaday qori oo ugu hanjabay inuu tooganayo haddii aanay ka tegin lacagta. Si kastaba ha ahaatee, wuu seegay isagoo isku dayaya inuu toogto. Joe oo soo saaray qorigiisa ayaa si aan joogsi lahayn ugu ridaya dhanka Chuck oo argagaxsan oo qaylinaya ayay iskaga tegayaan. Aakhirkii saddexdoodii waxay fuuleen baabuurkii, waxayna ka carareen goobtii iyagoo wata $2.3 milyan. Habeenkii waxay ku dabaaldegeen casho wanaagsan. xafladdu marka ay dhammaato, saddexdooda ayaa israacaya si ay guryahooda u aadaan. Iyagoo jidka soo socda, Willie ayaa u miyir beelaya maadaama kaliyihiisu ay shaqadooda gabeen. maalintii xigtay, wakiilka FBI-da ee Hammer ayaa horay uga ogaaday sawirka Willie kamarada. Albert iyo Joe waxay keenayaan Willie isbitaalka. Ugu dambeyntiina waxay ogaadeen dhibaatada caafimaad ee Willie ku sugan yahay. Hadda Willie waxa uu u baahan yahay in kaliyaha loo bedelo sida ugu dhaqsaha badan. dhanka kale, Hammer waxa uu ka soo muuqday dukaanka raashinka, halkaas oo maamuluhu uu tusay socodka Albert ee kaamirooyinka CCTV-ga. waxa uu ogaaday in dadka ku jira labada muuqaalba ay aad isugu eg yihiin. maalinta xigta, Albert waxa uu arkay booliska oo ka soo muuqday albaabkiisa hore.
kadib boolisku sidoo kale waxay soo qabanayaan Willie iyo Joe waxaana lagu xirayaa tuhun ay FBI-du ka soo saartay. wax yar kadib markii Hammer uu bilaabay inuu su'aalo weydiiyo saddexdii nin waxay ku adkaysteen sheekadii ay hore u diyaarsadeen. kadib waxaa dib laynoogu celinayaa maalintii dhaca. Joe waxa uu tagay qolkii tigidhka oo koofiyadiisii kala bedeshay saaxiibkii kadibna si aayar ah ayuu uga soo baxay. dhanka kale Willie wuxuu aaday guri container ah oo labiskiisii iska bedelay oo uu baxay. Albert isagu dhankiisa waxa uu aaday musqusha dadweynaha wuxuuna si dhuumasho leh u soo baxay oo si degdeg ah u fuulay baska. kadib markii ay soo dhameeyeen dhacii saddexdoodu waxa uu tageen Jesus si uu u qariyo lacagta. Hammer ayaa si uu ogaado dambiilayaasha kaxaynaya saddexdooda iyo tuhmanayaal waayeel ah oo kale geynayana safka bilayska iyagoo adeegsanaya markhaatiga gabadhii yarayd si ay u aqoonsato Willie. kadib markay socoto oo ay si taxadar leh u eegtay mid kasta oo ka mid ah in muddo ah ayay garwaaqsatay saacadda gacanta Willie ku jirta laakiin way diiday inay sheegto. sidaasna Hammer waxa uu ku waayay dambiilihii. dhowr maalmood kadib Joe iyo Jesus ayaa ka soo muuqanaya maqaaxida iyadoo Jesus uu u gacan gelinayo Joe qafis uu ku jiro eeyar. Joe ayaa la yaabay markuu ogaaday in Jesus uu ahaa hogaamiyihii tuugta ee uu arkay filimka bilowgiisii. waxa uu Joe siinayaa lacagtii $2.3 milyan ahayd wuxuuna sidoo kale diidayaa inuu qaato qaybtiisii. Jesus ayaa sidoo kale u sheegaya Joe in taatuugii uu arkay maalintii uu ahaa taatu maydhmaya laguna khiyaameynayay booliska. si lama filaan ah Hammer ayaa sidoo kale ka soo muuqanaya maqaaxida si uu ugu celiyo Joe boorsadiisii lacagta ee uu ilaaway. hadal yar kadib Hammer ayaa fariistay oo la ciyaaraya eeygii gudaha qafiska ku jiray. qafiska waxaa sidoo kale ku qarsoon lacagtii. sheekadooda ayaa soo gabagabowday markii uu eeygu farta Hammer ka qaniinay. hadda Joe ayaa si degan qafiska u qaatay oo ka baxaya maqaaxidii isagoo la socda Jesus iyo Hammer. kadib saddexdiina waxay soo dirayaan shandad ay ka buuxdo lacag si ay u caawiyaan saaxiibadooda ay wada shaqayn jireen. maalmo kadib Willie ayaa loo gelinayaa kelida Albert ugu deeqay. dhammaadka filimkana waxaynu arkaynaa Albert iyo Annie oo isguursaday. saddexdooduna waxay u dabaaldegayaan hantidooda. filimkii maanta intaas ayuu ku dhammaaday. fadlan haddii aad ka heshay subscribe nagu caawi si aad u daawato filimam kale oo kooban oo af Soomaali lagugu soo koobay. sidoo kalena like iyo share si ay u gaadho asxaab fara badan oo anigoo idin leh fi amaanillah waa inoo muuqaalka xiga.